asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal halkani waa bartaan youtube-ka ku leenahay dalka t v media tube waxaana dadka soomaaliyeed ee walaalaheena la socodsiineynaa in halkan aad ka heli doontaan wararka iyo macluumaadka qaarkood dadkii nagala socday qaranka t v media waxaan idinka codsanaynaa inaad halkanna kusoo biirtaan oo aad subscribe tirahdaan gabaleelkana furataan haddii aad tahay qof nagu cusub oo shabakadaheena warbaahineed aan horey ugu xirnayn oo hadda nagu soo biirayna waxaanu kaa codsanaynaa ama markii ugu horeysay ay u tahay inaad kusoo birto barteena youtube-ka dalka t v media tube halkaasi aad ka heli doonto macluumaad iyo wararkii ugu dambeeya xaqiiqda ku salaysan waa tahay daawadayaal aynu ku bilowna daawadayaal madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo tallaabo uusan qaadi jirin ayuu madaxweynaha qaranka qaaday mudane xasan sheekh maxamuud taasoo wejigabax aada weyn ku keentay madaxweynaha waxa ugu weyn ee bulshadu hadal hayaan amaba lasoo xiganayo saraakiishii turkida inay hadal hayaan ayaa waxay tahay tallaabo uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud bal maxay tahay tallaabadu hanaga degdegin daawade waanu kula socodsiineynaa madaxweynaha qarankeena soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxauu booqday xerada turkisom markiisii ugu horeysay arinta laakiin la yaab kale waxay tahay madaxweynaha qaranka in uu ka muujiyey shaki in nafsadiisa halkaasi lagu goynayo oo lagu dilayo haddaba daawadayaal waxyaabaha naxdinta le waxay noqotay madaxweynaha qaranka isagoo wata ciidamadii ilaalada ahayd ciidamadii gaarka ahaa kuwii madaxtooyada istaafyadii khaaska ahaa security-ga ahaa isla markaana xataa haddii hub aysan ka maarmayn qalab ay qaadan karaan baastoolado ayaa madaxweynuhu qori masaarida ay soo sameysay masaarina maysa sameyn laakiin israa'iil iyo masaarida iyo carabtuba qaarkood way soo saaraan waana qori olli ah oo qoryihii hore ah oo la yiraahdo uzi zab machine gun la dhaho oo faraciisu badan yahay laakiin nooc ka mid a oo noocan dhuuban oo dabada dheera ayaa daawaday ay wateen ilaaladii madaxweynaha waxyaabaha naxdinta le waxay noqotay in madaxweynaha qaranka laga ilaalinayay ciidamadii u tababaranayay qarankan soomaaliyeed ee markaasi la rabay in uu la howlgalo uu la shaqeeyo waxyaabaha naxdinta le waxay tahay inay soo baxayeen warar kale isla markaana intii aan markaasi dabcan aan xerada ciidanka uusan soo booqan maalin ka hor ayay difaac ka galeen qaar ka mid a wadooyinka loo marayo madaxtooyada ciidamo madaxweynaha markaasi taabacsanaa oo ammaanka wax loogu yeeray sii sugayay naxdin waxaa noqotay amakaag iyadoo xerada turkisom la ogyahay ammaankeeda sida loo adkeeyey saraakiishii turkida ahaa macalimiinta ahaa ay joogaan dugsigan turkisom ee tababarka lagu siiyo ummadda soomaaliyeed saraakiil heer sarsara ay joogaan oo turki ah in markaasi madaxweynaha ilaaladiisu ay soo qaataan qoryo la aaminsan yahay inay hadda masar ka soo qaateen ama ay masar wadanka keentay laba fariinba way diraysay daawadayaal hoos u dhigidda xiriirka turkiga iyo weliba markaasi in qoryahooda looga kalsoon yahay qoryaha masaarida sawir caynkaasi way bixi kartay iyo arrin kale oo ah inuu madaxweynuhu shiki ka qabo saraakiishii iyo saraakiin xigeenadii meesha ku tababaranayay warkani qayb wanaagsanna oo isugu jiraa iyo qayb xun intaba qayb xun oo madaxweynaha cambaar ku ah iyo qayb wanaagsan oo aanu madaxweynuhu ka qayb galay qalinjabintaas laakiin sidii ugu habooneyd uusan uga qayb galin waa tahay aynu ku horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tababar usoo xiray dufcadda afraad ee leyli sarkaal iyo dufcadda shanaad ee leyli sarkaal xigeen ee ka baxay dugsiga tababarada ee ciidamada soomaaliyeed ee turkisom madaxweynaha oo ugu mahad celiyey dowladda turkiga hirgelinta dugsigan oo la dhisay sanadkii 2015 ayaa sheegay in dowladda federaalk ay ka go-an tahay dib u dhiska qaalabaynta iyo weliba tayeynta ciidanka xooga dalka si loo helo ciidan soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega sugidda amniga dalka hirgelinta dugsigan waxa ay bilow u tahay waqti dhow in markaasi aan gaarno in aan si buuxda gudaha dalkeena ugu tababarano ciidankeena waxaan u hambaliyeynayaa waalidiinta walaalaha iyo qoysaska ay kasoo jeedaan saraakiishan iyo kuwii ka horeeyey ee halkani ka bixi jiray inay u ogolaadeen ubadkooda ku biirida ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo bandhigay khudbadda uu jeedinayay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada u jeedinayay ahamiyadda uu siinayo waxa ugu yeeray in dadka soomaaliyeed laga dulqaado dhibaatada argixisada lana xoreeyo deegaanada ay kasoo maleegayaan falalka gurcan ee kasoo horjeeda dowladnimada iyo qiyamka suuban ee diinteena dhankoodana saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ayaa soo bandhigay dhoolatus ay ku muujinayaan cududda iyo tayada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyagoo gutay dhaarta dastuuriga ah ee la xiriirta inay difaacayaan dalka dadka diinta iyo weliba calanka soomaaliyeed diinta dalka dadka iyo weliba calanka soomaaliyeed diinta aynu horeysiinay munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dalka aan walaalaha nahay ee turkiga mudane maxamed yilmas gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar filish wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee kusimaha ah mudane cabdulqaadir maxamed nuur taliyaha ciidanka
waa tiktok taliyaha ciidanka xooga dalka sareeye guuto odawaa yuusuf raage, taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijar iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada markaasi sarsare iyo madaxda sarsare ee dowladda. haddaba iyadoo arintaasi ay si qurux badan u dhacday xafladaas si adagna u agaasimeen turkidu, islamarkaana ammaanka goobta ay xaqiijiyeen maadaama naftoodii laftigooda ay joogaan oo safiirkooda iyo mahmad yilmas oo diblomaasi sare ah iyo sidoo kale saraakiil sarsare ee wadanka joogaan, in la arko madaxweynihii oo labada wiil oo staafka ah hadda maanta la socotay in ay soo qaataan qoryo markaasi qoryo hore oo waa hore markaasi laga baxay oo aan micno badanna soo siyaadinayn, khalkhal intaa la-egna ay muujiyaan. waxaa lagu tilmaamay in cabsida ugu weyn ay u muuqatay in laga muujinayo ciidamada. qorigan la yiraahdo uzi submachine gun islamarkaana ah qori oldi ah, rasaastiisuna ay tahay rasaas aad u yaryar oo rasaasta bastooladu kale ah, tiiradiisu xataa aysan dheereen qoryihii dagaaladii hore ee dunida markaasi lagaga qayb galay ah. haatan la aaminsan yahay Masar inuu kasoo qaatay in ay istaafkiisu soo qaataan waxay ahayd wejigabax. waxaa taas u dhaantay inay bastoolada qaataan, laakiin tani waxay ahayd niyad-jab, iyadoo intaasu saraakiil ah gudoomiyihii gobolka banaadir, safiirkii guud ee turkiga u fadhiyay dalkeena, saraakiishii ciidamada xooga dalka ee ugu horeeyay taliya odawaa iyo sidoo kale markaasi cumar filish iyo diblomaasiyiintii iyo taliyaashii xerada ee turkida ahaa ee cadaanka ahaa, iyadoo ay joogaan daawadayaal in madaxweynuhu u qaado tallaabo caynkana waxay niyad-jab ku ahayd ciidamada uu tegay iyo weliba sidoo kale xerada uu tegay ee turkisom ee ah meel soomaaliya ugu fadhiya ahamiyad weyn, kana uu bilaabayo aasaaskeeda ciidan mar kale dib loo alkumo 30 sano kadib burburkii daawadayaal, maadaama turkidu waxaa garbaxayso soomaalida. haddaba dadka soomaaliyeed ayaa baraha bulshada aada u qaadaa dhigaya tallaabada madaxweynaha uu qaaday inay tahay tallaabo nasiib darro ahayd, islamarkaana muujinaysa in uu cabsi ka qabo ama shaki uu ka qabo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed. waxayna arrintan kusoo aadaysaa jeer oo madaxweynaha iyo tiimkiisa damuljadiid lagu eedeeyey mushaaraadkii ciidamada qaarkood inay weli ka haystaan, halka hay-adda nise ciidamadeedina ay kala direen oo ay waxyar soo hareen, islamarkaana ay rabaan in mushaaraadka badan oo la bixinayo aysan bixin, taasoo halis u keeni karta sugista amnigii wadankeena soomaaliya. si kastoo haataba baraha bulshada waxa ugu badan oo la hadalhayay ayaa waxay ahayd madaxweyne dhan oo booqanaya xerada turkisom islamarkaana sameynaya tallaabo caynkaana. horey umaysa dhici jirin madaxweyne farmaajo marar badan oo xeradan booqday weligii muusan ka haysan istaaf qoryo la ordaya. wuxuu dhexgeli jiray ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo dhexda ka geli jiray isagoo aan ammaankiisa ka walwalin, maadaama turkidu ay ku filan yihiin amaba ka adag yihiin sugista ammaanka xeradooda oo aan wax laga walwalo aysan jirin. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ragga istaafka u ah ayaa waxaa la arkayay iyagoo marna horey ka maraya marna gadaal, xilli xataa uu jeedinaya khudbadda way ka dheeraa waayeen oo madaxweynaha ay agtaagnaayeen. arrintani waxay noqotay dhacdo xanuun badan oo dadka soomaaliyeed ilaa iyo hadda ay isweydiinayaan madaxweynuhu ma turkida ayaa inay disho u ka baqayaa, ma ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee layli saraakiil xigeenna ee tababarkan caadiga ahaan la siiyey maalintii markaasi u dhaaranayeen dalkooda dadkooda inay nafta u horeeyaan oo markaasi dhibaato badan u maraya ama ka maraya sidii wadankan soomaaliya loo badbaadi lahaa, miyuu madaxweynuhu qaranku micnaha uu ka shakisanaa, ma kuwa dadka kale meesha marayo ka naf wanaagsan yahay, safiirka turkiga miyuu ka naf weyn yahay ama ka naf wanaagsan yahay, taliya odawaa iyo cumar filish miyuu ka naf weyn yahay ama ka naf wanaagsan yahay, oo waxyaabaha ugu weyn shacabka soomaaliyeed ay isweydiinayaan. si kastoo ahaataba tani ayaa muujinaysa kooxda damuljadiid in ciidamada qaranka dhismahooda ayba u arkayeen caqabad, islamarkaana sidoo kale hoos u dhigayaan xiriirkii aan la lahayn walaalahan turkiga. marka la arko in turkidii la muujiyo inaan lagu kalsooneyn, balse qori inuu dheemish yahay iyo inuu caadi u dhacayo aan la garanayn oo laga soo qaaday Masar la muujiyo in lagu kalsoon yahay, waxa uu noo sheegay mid diblomaasiyiinta ka mid ah Soomaalida ku sugan Muqdisho intaasi ay ku keeni karto cara aad u xoog badan safiirka turkiga iyo saraakiisha ayna gaari karto ilaa madaxweyne Erdogan, kuwaasi oo horey uga xanaaqsanaa in masaaridu ay basaaseen xeradan turkisom, islamarkaana sirdoon masaariya ku sugnaa gudaha wadankeena Muqdisho. agaasimaha hay-adda nabad sugidda qarankana uu soo xerogeliyay ama uu keenay inay horey basaaseen daawadayaal xeradan turkisom ayaa markaasi la dhaliilayaa. madaxweynuhu inuu soo qaato hub ma turkidii uu ka baqaya maadaama xeradooda la basaasay, miyuu siri ama dhibaato ku gaarsiiyaan? isla hubka uu soo qaatayna waa hub masaariye, ma fariin kale ayuu dirayaa? dadka soomaaliyeed ee siyaasadda u dhown daloola qof walba fikir ayaad leedahay, bal fikirkiina wixii ku aadan adikana insha allahu dhanka hoose nagula wadaaga.
wixii macluumaada kasoo kordhana waanu idiin soo gudbi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.